وامر kale iyo silsiladii milka iyo maandhaaf qaybtii 13aad oo hadda dabka laga soo qaaday ayaa la soo saaray bata aynu ku wada caweyne ee midnimo qaran films waxa qaybtan codkiisii baxsanaa inuu soo tabinaya fanaanka daadayr ee Cabdiwali Xasan Dhooy Cabdiwali oo raga u safan isla markaana gaashaanka u daruuray Xaliima Hilaac iyo dhaantadeedii raga lagu karbaashiyay ayaa yiri xaalku midab la dilo uu ka miisaan fogeeyay Soomaali maalkeedu meeshii ka bixin idinka moobilada meherkiinii ku xidhay midhahani waxay ka soo burqadeen abwaanka weyn ee reer Hargeysa Sakariya Saryan oo weerar iyo dhul حاوليدا kaga soo qaaday dhanka iyo Soomaaliland waxanka iyo muusigu waa macallimiintii hore aan wartooti iyo Maxamed Yare waana soo saartay midnimo qaran films garta murugta iyo miiska hadalku yaal arrimaha markay raagu meel saarayaan sareeyay miyaad soo martii jirteen hadalku yaal arrimaha markay raagu meel saarayaan horta dumarku miyay soo martii jireen aadmeerayna jirin marna kama heshid qofku yidhi malkaadana ku jaabin mar hore ruuxu kaa mudnaa marxab iyo gudoon kama heshid ku yidhi malkaadana ku jaabin mar hore ruuxu kaa mudnaa marxab iyo gudoon xishooda tiyo Soomaali maalkeedii meeshii ka bixin ka jooga idinka moobilada meherkiinii ka dhigay miisaan fogee xishooda tiyo Soomaali maalkeedii meeshii ka bixin ka jooga idinka moobilada meherkiinii ka dhigay madax mariyo buran iyo masayr mugdi inay gudan iyo meela awaan macnood soo ma noqon basaraydii haween shaki madax mariyo buran iyo masayr mugdi inay gudan iyo meela awaan macnood soo ma noqon
miisaan fogye xishooda tiyan Soomaali maalkeedi meeshii ka bixin ka jooga idinka moobilada meerkiinii ka dhigay miisaan fogye xishooda tiyan Soomaali maalkeedi meeshii ka bixin ka jooga idinka moobilada meerkiinii ka dhigay